Dhammaan waa idin salaamay daawadayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii gobollada Soomaaliya. Maantana waxaan ku soo qaadan doonaa gobolkii saddexaad oo noqonaya gobolka Bakool. Dhanka koonfureed ayaanan ka soo bilownay. Waxaan soo qaadanay gobolladii kala ahaa Jubbada Hoose iyo Jubbada Dhexe. Dib ayaadna uga heli kartaa, waadna ka baaran kartaa janalka Dhimbil-dhise. Maantana taariikhdu waxaa weeye gobolka Bakool. Ku soo dhawaada taariikhda gobolka Bakool, degmooyinka uu ka kooban yahay iyo sawiradooda iyo macluumaad ku saabsan gobolka Bakool. Haddii aan ku bilaabo taariikhda gobolka Bakool, waxa uu ku yaalaa koonfur galbeed Soomaaliya. Dhanka qorax ka soo baxa waxaa ka xiga gobolka Hiiraan, dhanka qorax u dhacana waxaa ka xiga gobolka Gedo, dhanka waqooyina waxaa ka saaran gobolka Soomaali galbeed ee ka maqan dhulka Soomaaliyeed. Ugu dambeynna dhanka koonfureed waxaa ka xiga gobolka Bakool. Degmooyinka gobolka Bakool aan u gudubno markan. Degmooyinka gobolka Bakool waa 5 degmo sida caadiga ah, waxaana dib uga soo kordhay 3 degmo xilliyadii dambe. 5ta degmo haddii aan ku bilaabno, gobolka Bakool waxa uu ka kooban yahay 5 degmo oo kala ah: 1. Degmada Xudur oo ah magaalo madaxda gobolka Bakool. Degmada 2 waa degmada Ceel Berde. Degmada 3aadna waa degmada Tiyeglow iyo degmada Waajid. Degmada 5aadna waa degmada Yeed. 3da degmo ee gadaal uga soo korortay degmooyinka gobolka Bakoolna waxa ay kala noqonayaan degmada Rabdhure iyo degmada Buur Dhuxunle iyo degmada Caleemow ama Waraabeley sida u taqaano. Dhaqaalaha gobolka Bakool markan aan u soo gudubno. Dhaqaalaha gobolka Bakool waxa uu ku tiirsan yahay dhaqashada xoolaha iyo beeraha. Marka intaas laga soo tagana, ganacsiga ayaa kaalin weyn ka ciyaara dhaqaalaha gobolka. Gobolka Bakool ayaa ah gobol ku yaalla xuduudda aan la leenahay dhulka Soomaali galbeed. Gobolka oo ku yaalla dhul xuduud ah waxa uu ka fursad badan yahay gobollada kale ee dalalka kale la lahayn xuduud, balse ma jirto fursado waaweyn oo ganacsiya oo kala dhexeeya dhulka Soomaali galbeed. Gobolka Bakool ayaa ku caan baxay wax soo saarka malabka saafiga ah oo dadku ay aad u jecel yihiin. Dadka gobolka dega 3 meelood meel waa beeraley. Waxyaabaha ay soo saaraan waxaa ugu caansan masagada, taas oo u baahan biyaha iyo kulaylka qorraxda. Gobolka roobku waxa uu ku da'aa sanadkii 2 jeer, waana guga iyo dayrta. Marka la fiiriyo xoolaha, waa shayga labaad ee dhaqaaluhu uu ku tiirsan yahay gobolku. Noocyada kala duwan ee xoolaha sida geela, ariga, lo'da iyo idaha ayaa laga dhaqdaa gobolka Bakool. Gobolka waxaa kaloo uu leeyahay kheyraad macdanta, taasoo dadku aysan awood u lahayn in ay soo saartaan oo ay ka faa'iidaystaan. Sababta ugu caansanna ay tahay mushkiladda waddanka intiisa oo dhan haysata. Dugsiyada waxbarasho ee gobolka Bakool haddii aan markaan u gudubno. Dugsiyada waxbarasho ee gobolka Bakool waxaa ugu caansan dugsiga Shaytam ee ku yaalla magaalada Waajid, dugsiga Cabdiraxmaan Zeylaci ee ku yaalla degmada Tiyeglow, dugsiga Shodog ee ku yaalla degmada Xudur, dugsiga Buulow oo isna ku yaalla degmada Xudur, dugsiga Macallin Musdhaf Maxamuud degmada Buur Dhuxunle ayuu ku yaallaa dugsigaas isna. Diyaarintii qoraalkaana waxaa Wikipedia ahaan u soo diyaariyay Radio Madayto, waxaana halkan janalkan Dhimbil-dhise idinkugu soo gudbinaya aniga oo ah Master Jimcaale. Markaana ku soo dhawaada sawiradii degmooyinka gobolka Bakool oo mid mid idin tusi doono. Daawasho wanaagsan. Sawirada degmada ee gobolka Bakool waa kuwan. Daawasho wanaagsan. Waxaana ugu horeeya magaalo madaxda gobolka Bakool, degmada Xudur. Degmada 2aad ee gobolka Bakool waa degmada Tiyeglow. Degmada 3aad ee gobolka Bakool waa degmada Waajid.
Degmada afraad ee gobolka Bakool waa degmada Ceel Berde. Saddexda degmo ee gadaal looga soo kordhiyay ee kala ahaa Rabdhure, Buur-Dhuxunle iyo Caleemowna waxaad ka heli kartaan Google-ka adinkoo ka baaraya taariikhda gobolka Bakool. Aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. Like saar muuqaalkan, siina share garee, lana soco barnaamijyada gobollada dalka oon idinkugu soo gudbin doono channel-kan Dhimbil Dhise. Dhammaantiin waxaan idin leeyahay daawadayaal aad ayaad u mahadsantihiin.